waxaan rabaa inaan idinla wadaago barnaamijkeennii aynu soo bilownay ee ahaa faallo iyo talo iyo taariikh. runtii dadka Soomaalida ah dhibaatooyinka ku soo noqnoqda badanaa wax kama bartaan. waxaad moodaa in mar walba dhibaatadii ku dhacday dhowr sano ka hor in ay isla dhibaatadii ku soo noqonayso maadaama aynu nahay dad aan ka baran khaladaadkay gelayaan waxba. dadka Soomaalida ahi inta badan colaadaha dhex mara waxay ahaan jireen colaado ku salaysan cawska iyo daaqa ceelka iyo haweeney ay isku qabsadeen ama geel ay kala dhaceen iyo waxay u yaqaanaan utunta iyo godobta iyo waxyaabaha ay kala aarsadaan oo iska kooban oo la xallin jiray geedka hoostiisa lagu xallin jiray. laakiin xilligii uu isticmaalku yimi waxaa dhex martay siyaasado uu isticmaalku maleegi jiray oo qabaa'ilada uu siyaabo kale iskaga horkeeni jiray. taana waa laga soo gudbay. dowladnimada xilligii loo soo gudbayna waxaa dhacday colaado iyaguna siyaasad ku salaysan oo xukunkii militariga ahaa iyo dadkii siyaasadda ay isku hayeen dhex martay. taana waa laga soo gudbay. fikirkan hadda gobolka Sool ka socda ama SSC iyo ama waqooyiga Soomaaliya guud ahaanba hadda aad moodid inuu colaadi hadhaysay bilow ah oo la rajaynayo in ay noqoto mid inaga soo gabagabowdo laakiin u muuqata mid muddo socon doonta oo dadka colaadi ay dhex mari doonto. fikirkaas iyo qaabka noocaasi waxa uu ka jiray koonfurta Soomaaliya 1991 ilaa laga soo gaaray 2000. waqooyiga Soomaaliya kama jirin inta badan colaadahii ragaadiyay koonfurta waxaa jiray fikir ah in beeliba beel kale ay ka qabsan karto dhul. fikirkaas ayay aaminsanaayeen muddo badan. jabhadii ka jiray way isku duuli jireen. waad ogtihiin jabhadii USC ee caydidii ay hogaaminayeen waxay u haysatay inay koonfurta Soomaaliya oo dhan qabsan karto. way aragnimo la'aan ka maqnay daraadeed laakiin muddo kadib way fahmeen in ayan beelana beel qabsan karin. waxay qabsadeen Kismaayo, waxay qabsadeen meelo badan, waxay ku duuleen Baay iyo Boqol, iyaga dhexdooda is dilay, waxa lagu duulay Beledweyne, colaado badan baa dhacay. laakiin muddo kadib way aragnimo ayay heleen waxayna fahmeen in ayan isqabsan karin ay wada noolaan karaan. waxaana loo guuray fikir ah federalism in cid walba meesha ay degan tahay. waxaan garanaynaa magaalada Kismaayo iyo Jubbooyinka oo beesha degta ee daaroodku ay isku dili jireen oo ay mar walba Kismaayo kala qabsan jireen iyaga oo moodaya in midba midka kale uu ka qabsan karo deegaanka. laakiin muddo kadib waxay fahmeen in ay deegaanka wada leeyihiin ayna kala qabsan karin ay isku ixtiraamaan sida ay deegaanka u kala degan yihiin. waxay isku darsan karaan ay isku darsadaan wixii kalena ay cid waliba deegaankeeda lagu xurmeeyo. kadibna waxay dhisteen maamulka Jubbaland. Baay iyo Boqol sidoo kale dagaalo noocaas ayaa ka socon jiray. muddo kadib ayaguna way isla fahmeen in ay maamulka koonfur galbeed dhistaan oo aan cidina cid kale ka qabsan karin. gobolada dhexe laftooda waxaa jira dagaalo ba'an oo dhex mari jiray Puntland iyo Galmudug ama Puntland oo aan Galmudug jirin ayaa waxa ay had iyo goor dagaal dhex mari jireen qabiilada Mudug iyo Galgudud degan. muddo badan kadib waxaa nabad la dhex dhigay xilligii Farmaajo in ay bal heshiis ku wada noolaadaan dadka degan Puntland iyo dadka kale ee degan gobolada dhexe. nabadgelyadaas way jirtay muddo laakiin iyaduna waxa ay ka soo gudubtay xadkeedii oo dhinacan la yiraahdo Galmudug hadda aynu naqaano colaado badan baa ka jiray oo waxa la moodi jiray in beeliba beel kale ay qabsan karto sidii Ahlusunna wal Jamaaca oo kale Galmudug maamulkii la oran jiray oo kale iyo maamulkii calaado ka jiray xubnihi. laakiin ugu dambeyntii waxay fahmeen in aan cidina cid ka qabsan karin dhulka ay wanaagsan tahay in la wada noolaado ama cid walba deegaanka ay degan tahay lagu ixtiraamo cidii ay ku darsanaysana iyada wax laga weydiiyo cidda ay noqonayso iyo sida ay isu maamulayso. ugu dambeyntiina isfahan baa dhex maray xubnihi iyo Galmudug iyo Ahlusunna wal Jamaaca. hadda waxay isku yihiin dhammaantood maamulka Galmudug ayaa la isku yiraahdaa. waxa isaguna jira oo muran ka taagan yahay laakiin hadda wuxuu isla soo fahmaya Hirshabeelle oo isaguna had iyo goor colaado iyo isjiid siyaasadeed u dhex mari jiray. ugu dambeyntiina hadda meel fiican xaalad ay u marayso. waxaad moodaa dadka koonfurta degan in ay arrimahaas isla meel dhigeen oo ka soo gudbeen in beel ku qabsata dhulkeeda oo ku duusho. waxayna isla ogaadeen in cid waliba meesha ay degan tahay lagu xurmeeyo farahana looga qaado waxna laga weydiiyo ayna isfahmaan hadday wada noolaanayaan iyo haddii ay maamuladu u kala duwanaanayaanba iyaga oo koonfur wada degan oo Talyaanigu uu wada gumaysan jiray cidina cidda kale uguma duusho Talyaani baa ina wada gumaysan jiray oo ana ku qabsanaya
laakiin talyaani teg dhulkana adaa leh walaal wax ma isku darsannaa mise kala maamul baynu noqonnaa saasoo kale waqooyiga ayaad mooddaa khibrad la'aan badan inay hayso oo ay moodayaan in qolaba qolada kale dhulka ka qabsan karto muddo badan ayaa waxaa la ka jiray waqooyiga Soomaaliya isku kornoolaansho ay dadku dulman yihiin oo ay haddana qalbigoodu u kala jeedo haddana siyaasadihii iyada la isla fahmin si uun la isu jiidanayay laakiin ugu dambeyntii way qaraxday xabad baana jirta hadda iyo colaad gobolka Sool iyo SSC ama beesha maxay ahayd degan Sool iyo Sanaag iyo Buuhood la degan iyo beelaha kale ee walaalahooda deriska ah oo ay dhul iyo deegaanba ay deriska yihiin iyo dhaqanba aad moodaa in ay waqooyi ahaan isu dilayaan oo ay ku doodayaan qaarkood Ingiriis bayna wada gumaysan jiray kuwa kalena ay aaminsan yihiin Ingiriis ka hor baan dhulka deganay Ingiriis oo joogaynu la dagaalameynay Ingiriiskii baynu isku xoreynay Ingiriis ka dib baynu dawlad ahayn haddana dhulka nin walba isaga dhulkiisa leh wax ma isku darsannaa mise waynu kala maamul baynu noqonnaa nin walba deegaankiisa in wax laga weydiiyo laakiin aragtidaasi ma jirto waxay aaminsan yihiin wali maamulka Soomaaliland ama jabhadda SNM ayaa waxay aaminsan tahay dadka aaminsani in ay waqooyiga Soomaaliya oo dhan xoog ku qabsan karaan oo ay rabitaankooda iyo waxa iyagu doonayaan kaliya waqooyiga uu ka jiri karo kuwa kalena waxay aaminsan yihiin beelahan kale ee degan Sool iyo Sanaag iyo Buuhood la degan ama Cayn waxay aaminsan yihiin iyaguna in ayan Ingiriis iyo SNM mid walba ay la dagaalameenba SNM-na way la dagaalameen waxay la dagaalameen Ingiriis dhulkoodana iyaga ayaa xor u ah colaadaasi waa mid hadda taagan marka waxaan aaminsanahay in ay ku dambayn doonto in cid waliba deegaankeeda iyadu ama xabada ku xoreysato ama hal isfahmo oo amaan hal is siiye cid waliba deegaankeeda in ay leedahay kadib marka dad badan dhintaan labada dhinac dhaawac colaad timaado isfaham darro badan timaado ganacsigu curyaamo colaaduna ay jiitanto ugu dambayn in waliba cid waliba meesha ay degan tahay in ay deganaan doonto laakiin Allah uu inta goor tahay fahamsiyo waxa hadda ay fahamsan yihiin dadka koonfurta Soomaaliya degan oo way aragnimo u leh in aan beelna beel qabsan karin haddana si nabada maamulana u wada leh dhulkana kala leh kala maamulo ah heer waxa la gaaray magaalada Gaalkacyo dadka degani ay isdili jireen oo kooxda kale ay moori jirtay in ay ka saarayso oo ka qabsan karto laakiin ugu dambeyn maxay isla fahmeen in maamul kala laba maamul ay ka jiraan magaalada Gaalkacyo haddana waxay fahmeen iyagoo kala laba maamul inay hal boolis samaystaan ay maxay amnigooda wada sugtaan ganacsiga la isu furo magaalada aan la kala garan in laba maamul ay leedahay kaliya waxaad arkaysaa calanka uun laakiin dadku labada dhinacba way kala ganacsanayaan way wada faraxsan yihiin colaadina way ka soo gudbeen laakiin muddo dheer bay ku qaadatay inay fahmaan magaalada inay wada leeyihiin oo cid walba dhinaceeda ay maamulato ay boolis iyo nabadgelyada isku darsadaan waqooyiga Soomaaliya waxaan rajaynayaa in maamulka Somaliland ee go'aansada ay fahmaan in dalka ayan xoog ku kala goyn karin beelana beel ayan qabsan karin dadkuna ay dad wada dhashay dhulkana wada leh wada degan walaalana ah Soomaalina wada ah laakiin kala degan waxaan rabaa inaan la wadaago dhammaan dadka Soomaaliyeed inta ogi way ogtahay intaan ogeyna aan u sheego ma jirto hal magaalo oo ay wada degaan beesha Harti iyo beesha Isaaq ay wada degaan ma jirto waa laba beelood oo derisa sida ay deris u yihiin dadka walaalaheena Habargidir iyo Majeerteen si deriska u yihiin hal magaalo ayaa jirta oo ay wada degaan beesha Harti iyo beesha Isaaq waa magaalada Ceerigaabo sida magaalada Gaalkacyaba ay u wada degaan beesha Habargidir iyo beesha Majeerteen haddana dhulka kale oo dhan uu kala soocan yahay sidaas oo kale weeye dhul isku dhex qasan oo dadku ay wada degan yihiin ma jirto hal magaalo oo ay Harti iyo Isaaq wada degaan ma jirto oo aan ka ahayn magaalada Ceerigaabo intaasina waa waaqica taariikhda aynu soo marnay iyo dadka juqraafi ahaan say u kala degan yihiin iyo sida xalku yahay in dadku ay bal u fahmaan sida ay tahay iyadoo aan la siyaasadayn iyadoo aan been la sheegin iyadoo aan la mujaamaleynin iyadoo oo waaqica aan la qarin oo waxyaabo kale oo aan jirin laga hadlin intaasina waxaan kula wadaagay in dadka aan aqoonta u lahayni ay aqoon u lahaadaan dhulka iyo deegaanka sida oo kale waaqica iyo taariikhda hore ee la soo marayna aynu wax ka baranno oo aynu ku dayno walaalaheenna koonfurta Soomaaliya sida ay isu fahmeen oo ay maamul goboleedo walaalo oo derisa oo is-ixtiraama ay u noqdeen in waqooyiga Soomaaliyana ay gobolada SSCna maamulkooda sameystaan beesha Warsangal iyo Dhulbahanti iyo Fiqshini iyo walaalahooda Gabooye beesha Isaaq iyo ciddii la halmaashay ee raalli ku ihina ay sameystaan maamulkooda u gaarka ah ciddii beesha Isaaq ka tirsan ee gobolada
sool iyo sanaag iyo wax ka degta ee walaalahooda la hartiga iyo maxay ahayd fiqshin iyo gabooyo wax la dhisanaysana la soo dhaweeyo oo maxay ahayd deegaanka waa daris baa leeyahay la wada lahaado taasi waa wada noolaansho iyo isfaham reer magaalnimo ku dhisan ganacsigeenna nolosheenna isdhexgalkeena iyo walaalnimadeennana kor u qaadaysa iyo islaamnimadeennaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh